بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامية ولالهيغا الصوماليات سلام كدب walaalkayga ii dhegaysanayo walaashayda ii dhegaysanaysay waxaan ka codsanayaa oo fadlan ku leeyahay clipkaygan ama videowaygan gaarsii cidda ay ku socoto videowaygan wuxuu ku socdaa gabdhaha walaalahay ee social media sida khaldan u isticmaalaya buu ku socdaa waxaana leeyahay gabdhaha walaalahaya laba kelmadood iyo hal tusaale labada kelmada u horeysa waxay tahay walaal ilaahay rab subhanahu wa ta'ala wuu ku nicmeeyay caafimaad buu ku siiyay aqli wanaagsan buu ku siiyay jirkaagu ku dhameystiray shakhsi nool buu ka dhigay oo hadduu sharaf iyo qiimo isku yeelo sharaf iyo qiimo yeelanaya walaal ilaahay rab subhanahu wa ta'ala mahadnaqiisi iyo nicmadan ilaahay korkaaga ku shubay oo adoomo badan oo adoomihiisa kamida uusan siinin oo qaarkood dhakhtarka ku jiraan qaarkood indhala yihiin qaarkood dhagool yihiin qaarkood waalan yihiin intaasba ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala uu kaaga fadilay nicmooyin badan oo aysan haysanin inuu ku siiyay adiga walaal ma waxaad mooday shukriga ilaahay inuu yahay in social media la soo dhigo adigoo qaawanaysa xuruxaya ma waxaad mooday inuu yahay in social media la soo dhigo adigoo dhar kugu dhegan qaba oo isruxruxaya ma waxaad mooday inuu yahay sharafka iyo qiimaha adigoo jirkaaga qaybna qaawiyay qaybna qariya inaad banaanka soo dhigto ma waxaad mooday nicmada ilaahay inaad ku shukrido iyo shukriga ilaahay adigoo xumaan qasanay inaad soo dhigto walaal soo ma ogid ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala aqliga inuu ka qaadi karo soo ma ogid ilaahay lagu inuu ka curiyaamin karo soo ma ogid ilaahay labadan dad inuu ka qaadi karo maxaad waxaan u sameynaysaa walaal adoon miskiina baa tahay ducafaa baa tahay oo ilaahay mar walba u baahan oo aan ka maarmi kareynin baa tahay walaal ilaahay u noqo ilaahay u toobadkeen qaybta labaad waxay tahay walaashay soo ma ogid in aad aastay oo duugtay oo madaxa ka toogatay oo baabi'isay oo dhulka geysay sharafkii faamilkaaga hooyada macaan sharafkeedii aabaha macaan sharafkiisii walaalada sharafkoodii waayo wax aysan naftooda u qoorin inay sameeyaan baad ku dhaqaaqday wax ay ka yaqiiqsoonayaan oo ka xishoonayaan oo aysan weligood ku dhaqaaqi lahayn baad ku dhaqaaqday sidaa la ajligeeda waxay sababtay in hooyada iyo aabaha maaluba la caayo ay aysan xaq u lahayn oo aad adigu u soo jiiday qay aysan munaasab u ahayn ay aysan munaasab u lahayn oo aad adigu u soo jiiday ay aysan waxa la yiraahdo mutaysanin oo aad adigu u soo jiiday maaluba in la caayo hooyada iyo aabaha sharafkoodii maxaad u ilaalin weyday walaalada sharafkoodii maxaad u ilaalin weyday adiga sharafkaaga maxaad u ilaashan weyday walaal ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala ka cabso ilaahay noo noqo hooyada iyo aabahana intaad u tagto oo labada lugood ka shumiso iyo madaxa waxaad tiraahdaa insaan baanahay hooyo iyo aabe waan khaldamay khalad wuu iga dhacay khaladkaana waan ka soo noqday iiga duceeya inaana khaladka mar dambe gelin ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala waa u soo noqday ilaahayna waa u toobad keenay idinkuna ay cafiyo hooyo aabe iga raali ahaada iyo walaalahayo tusaalaha aan ku siinaya wuxuu yahay walaashayay hooyadan Aisha Allah ka raali noqday ayaa waxay tiri waqtigii nabigu sallallahu alayhi wasallam dhintay nabigu wuxuu ahaa ninkeedu ahaa oo qabay waqtigii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dhintay baa nabiga gurigiisa qayb kamid ah lagu duugay Aisha way iska soo gali jirtay dharkii iska bedeli jirtay ma aysan kala jeclayn waxa hadana dhintay aabaheed Abu Bakr Siddiq isna nabiga agtiisa lagu duugay sallallahu alayhi wasallam Aisha hadana gurigeeda ay soo galaysaa dharka iska bedelaysaa ma aysan kala jeclayn waxa hadana dhintay Umar ibn Khattab Allah ka raali noqday oo isagana nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Abu Bakr lagu agduugay maalinta laga bilaabo Aisha dhar dambe ma aysan dhigin dhar dambe oo ay leedahay ma aysan dhigin gurigeeda waxay soo galaysay iyadoo si fiican u xijaaban wala weydiiyay waxa lagu yiri Aisha maxaad saa u sameynaysaa waxay tiri waxaan saa u sameynayaa
حياء لعمر بن الخطاب حشود أن كحشون يا عمر بن الخطاب ولا ددك لربنا تكون يا توادد كاس ددك لرب تاريخ دود إن أدبر توادد كاس ددك لرب إن الدنيا آخرة أد ku fikirto wadada mareen ina marto waa dadkaas janno iyo wanaag iyo Allah raali haanshiisa hadaad doonayso adduunyo aakhiraba walaal dadkaas bad wadada ku helaysaa raac hadii kale shayaatiinta qaaqaawana hadaba cararayso iyaga markaad raacdo maalinta qiyaamaha shanlaayin oo aad cadaabka gasho إلهي رب سبحانه وتعالى وحان كبريا قبلهنا إنو هنونيو إلهو قبلها نو هنوني إلهو ويلشو نو هنوني إلهو دليرتو نو هنوني إلهو حقا نو وافجي والله ولي توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.